kulan wacan daawade waa mar kale iyo xogta qarsoon markana waxaynu ka hadli doonaa ciidanka booliska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay adeerkii sida arxandarada u dilay wiilku adeerku ahaa ee xaaskiisu ay dhashay afayeenka ciidanka booliska oo hadlay iyo digniino shacabka ku aadan oo la soo saaray ayaad warbixintani ku daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro janaalkayga magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxamed waan kugu soo dhaweynayaa xogta qarsoon go'aanka bixistii joogista adiga ayaa leh balse waxaan ka codsan lahaa inaad ila sii joogto oo aad channelka subscribe saarto ciidanka booliska Soomaaliya waxay soo bandhigeen adeerkii sida arxandarada u dilay wiilkii yaraa ee Muscab kaasoo 4 sano jir ahaa shalay ayaan u xambaahinay muuqaal aan kaga hadlayno wiil yar oo uu dilay adeerkiis hooyadiis qabay wiilkaas waxaa korkiisa ka muuqday jirdil xoogan oo u geystay adeerka sida inuu ku garaacay fiilo ugu dambeyn naqaska ay ku xirtay arintaas oo uu dhintay ciidanka booliska Soomaaliya waxay soo bandhigeen muuqaalka ninka geystay dilkaas waa dhacdo argagaxida leh shacab badan ay ka naxeen ilintii socotay hooyo Nimco ayaa hadda waxa ay ku soo dhamaan doontaa in wiilkeeda ay cadaalad u heshay ninka dilay oo lagu magacaabo Xasan Kaafi waa nin daayar muuqaalkiisa sidaad ka arkaysaanna uma muuqdo qof dilaa ah ama qof laga dheehan karo inuu qof kale argagaxin karo balse waxa uu geystay dhacdo ka baxsan bini'aadaniyada taas oo argagax ku abuurtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxa uu dilay isagoo oo xitaa waqti badan garaacayay wiil uu adeer u ahaa tani waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan nolosha dadweynaha Soomaaliyeed sidoo kalena hooyo Nimco oo ilinta ka daadanayso ayaa shalay cadaalad dalbatay ugu dambeyn sida muuqato booliska Soomaaliya waxay tilmaameen inay cadaalad siin doonaan hooyo Nimco wiilka yar oo 5 bilood ka hor guriga loo soo wareejiyay hore waxa uu korin jiray awowgiis ugu dambeyn hooyadiis waxay dalbatay in iyada ay korsato wiilkeeda balse hooyo Nimco dareenka ay waday oo ahaa in wiilkeeda iyadu la noolaado uuna dareemo jaceylka hooyanimo ninkan ayaa dhaafiyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in Xasan Kaafi oo si arxandara u dilay Muscab oo 4 sano jir ah in hooyo Nimco la xukumi doono loona gudbin doono maxkamadaha cadaaladda waxa uu sheegay in wiilka korkiisa jirdil xoogan uu ka muuqday sidoo kalena wiilka naqaska uu ku dhagay hooyadiis kale hore waxay sheegtay in wiilkeeda uusan naqas qabin sida daraadeed naqaska ku dhagay sida la dareemayaba waxa keenay jirdilka xoogan oo uu geystay ninkan sida arxandarada u dilay wiilka yar ee uu adeerku ahaa dhacdadan iyo kuwa kale argagax leh ayaa Muqdisho ka dhacay waayadii u dambeysay taas oo bulshada Soomaaliyeed si weyn ay kaga falceliyeen afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo arimahaas ka hadlaya waxa uu yiri ayna idin wadaago wiilkii yaraa ee Muscab 3 bishii July 2021 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan ina hooyo Naciimo Abshir Dilix ee da'diisana ay ahayd 4 jir ayaa 3 bishii July 2021 abaara 3 ama 9 galabnimo waxa si arxandara ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac ina hooyo Maryan Xiiray cilmi 25 jir ah degan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxa jirkiisa ku yaalay sida aad ka aragteen sawirada la soo galiyay baraha bulshada jirdilo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saayid jirkiisa ugu taalay marka baarista oo kiiska oo waliba meel gabagaba maraysa ilaa hadda waxa lagu ogaaday in marxuumkaas yarka saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhagay bacdama jirdil loo geystay ushaas ay ku dhacday iyadana baaristeedu way socotaa wixii ka soo baxa saasoo kale waa idin la wadaagi doonaa hadii Ilaahay uu yiraahdo magaalada Muqdisho waayadii u dambeysay waxay la kulmaysay dhacdooyin argagax ku abuuray shacabka sida tuuga sacajiiba shacabku dhacda sidoo kalena waxa hore loo arkay meedka gabar cideeda ay raadinayeen oo guriga qayb ka mid ah la dhigay ugu dambeynna urka meedkaas lagu soo kacay balse ciidanka booliska Soomaaliyeed digniino xoogan ay markan soo saareen waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubaysanahay lagu dagaalamayo burcad dadka dhacda wuxuu ka socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ujeedaduna waxay tahay in aan kula dagaalano burcadaas banaysatay dhiiga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay qofka burcadda ee u qasday inuu qof muwaadina oo mobile aan waxba joogin ka qaato waxay ku tusinaysaa halkaas waxa ka dareemi kartaa hadii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda ah uu dilayo marka waxba ma dhaamaan falalka kale oo argagixisadu ay dadka dhiigooda ku banaysatay burcadda hubaysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalano
maxaa yeelay waxay bannaysteen dhiigga iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed sida argixisuba hore u bannaysatay marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaacaba ay qayb ka noqdaan sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan isla markaana xogahana la wadaago hore waxaan dhowr jeer u sheegnay in 991 uu yahay lambarka gaaban ee lagala soo xiriiri karo ciidanka booliiska Soomaaliyeed fadlan muwaadin qasab maaha inaan adiga lagu dhicin haddii aad aragto wax ku tuhungeliya oo kuula ekaada inay amniga qalqal ku yihiin ama lid ku yihiin si gaaban ula xiriir ciidanka booliiska Soomaaliyeed taleefanka 991 kaas ayaa noo saamaxaya in isla markiiba howlgalka lagu soo qabtay howlgalka ka dhacay degmada Kaaraan oo eedeysanaha lagu raajoog lagu soo qabtay waxa lagu guuleystay in la soo qabto wicitaan qofkii muwaadinka ah uu soo marsiiyay 991 dhinaca kalena waxay ciidanka soo bandhigeen rag si cajiib ah dhac kaga geysan jiray Muqdisho kuwaas oo adeegsan jiray hub aan shaqeynba mid ka mid ah eedeysanayaashaas waxaa lagu soo qabtay bastoolad taas oo caag ah afayeenka ciidanka ayaa mar kale ka hadlay raggan kale ee lagu soo qabtay hubka macmalka ee shacabka ay ku dhici jireen taariikhdu markay ahayd 4tii bishii July 2021 waxaa la soo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedeysan burcadnimo kuwaas oo fal burcad hubaysan ka fulinaya degmada Kaaraan burcadaas saddexda ah ama dadkaas ku eedeysan burcadnimada ee saddexda ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeelo iyo dahab isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegate ah oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhigo howlgal ciidanku ay sameeyeen sidaas la eg maantay 5tii bishii July 2021 saas oo kaleeto waxaa la soo qabtay hal eedeysane oo isaguna bastoolad nooca la yiraahdo Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir taas oo cadeynaysa in burcadu ay isticmaalaan xeelado iyo taba kala duwan si ay dadka ugu dhacaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedeysane oo isna ku eedeysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedeysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtakoodeen dad sheegtay inuu hore u dhacay eedeysanahaas goobjoogna u ahaayeen dhicii oo iyagu u geystay marka eedeysanahaas gacanta lagu soo dhigay isagana baaristiisa socota marka ay ku cadaato ayaan saas oo kaleeto saxaafadda la soo wadaagi doonaa oo ku cadayn doonaa garsoorka xukunka markay ku ridaan kadib maxaa yeelay iyada oo maxkamadda awood u leh ama garsoorku uusan qofka eedeysanaha u aqoonsan dambiile lama dhihi karo inuu dambiile yahay sidaas daraadeed dhammaantood waa eedeysanayaal marka kiisasku ay ku cadaadaan ayay noqon doonaan dambiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto dhaca ayaa waydii dambe Muqdisho ka ahaa kuwa shacabka Soomaaliyeed ay la qabsadeen sidoo kalena dhacdooyinka argagaxa leh oo ay sii kordhayeen haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkayga daawato waxaan ka codsanayaa subscribe nabadgelyo